waxaan moodaa madaxweynuhu sida hore madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inuu iloobay in badbaado qaran weli joogaan laakiin inay joogaan anu sheegaynaa ama waayahanba dalka insha allahu tacaalaa sidaad ogtihiinba ra-iisul wasaaruhu asagaa mas-uul ka ah amniga iyo doorashada madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa ayuu kula wareejiyey hadda saacada ka hor shir ayaa wuxuu ka dhacay xarunta nisa oo uu shir guddoominaya xajaar taliyaha xoogga taliyaha ciidanka asluubta shirkaas oo ay ku sheegeen inay shirayaan guddiga amniga ee doorashooyinka waxaan ognahay heshiiskii bishii meey ee guddiga amniga ee doorashooyinku wuxuu ahaa sidii lagu heshiiyey biliiska taliyayaasha biliiska ee dowlad goboleedyada iyo taliyaha biliiska xajaar waxaan marka arkayaa in way lagu heshiyen waxay ahaayeen ciidamadu inay dibadda ka joogaan siyaasadda oo aysan ku milmin oo ay amniga keliya qaranka ku ekaadaan inay difaacaan shirkaa ka dhacay meeshaa saakay wuxuu muujinayaa in la xagaaldaacinayo doorashadii wuxuuna muujinayaa inqilaab qaarsoon oo u adeegaya madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaa haddana wuxuu xagaaldaacinayaa shaqadii ra-iisul wasaaruhu uu mas-uulka ka ahaa ee uu asagu xil saaraa iyo dadaalkii amniga iyo doorashada ayuu xagaaldaacinayaa wuxuuna baalmarsan yahay heshiiskii lagu heshiiyey waxaan kaloon arkaynaa inuu xagaaldaacinayo ama uu ka soo horjeedo in ikraan tahliil doctoresa ikraan tahliil ahaydna sarkaal ka tirsan ciidamada qaranka oo la waayey gacanta hay-adda nisana ku maqan in ay maaragtay cadaalad hesho ummadda soomaaliyeedna ay cadaalad hesho ikraan inay cadaalad hesho waxay cadaalad u tahay oy la mid tahay ummadda soomaaliyed cadaalad heshay gabar yar oo aqoon-yahanada oo sarkaalada oo soomaaliyeed oo intaasoo bilood maqan kadibna aan nimankii gacantooda ay ku maqnayd saad maqlaydin ay dhaheen al-shabaab ayay ku maqan tahay al-shabaabna ay iska diideen arrintaas waxay keentay in ra-iisul wasaaruhu tallaabo qaado isagoo u raadinaya cadaalad ummadda soomaaliyeed iyo ikraan tahliil iyo ehelkeedii isagoo cadaalad u raadinaya xilkana uu ka qaaday taliyii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka taas marka waxaa ka soo horjeestay madaxweynaha hore ee xilkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay muuqanayso cid walbana ay garan karto aamusnaashihii badnaa uu ka aamusnaa arrintaas iyo sida uga hor yimid ra-iisul wasaaraha inuu la kuleeyaha maqnaashaha ikraan shirkayga daraa'id arrintaasu ku salaysan yahay waxaan ka soo horjeedaa in maaragtay shirka ka dhacay hay-adda nabad sugidda maanta magacaabista qaldan ee madaxweynaha iyo ka hor istaagga cadaaladda ikraan tahliil inay hesho oo madaxweynuhu hormuud u yahay iyo inqilaabka dadban oo lagu samaynayo doorashada
cadaaladda iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed taas oo ka soo horjeeda dastuurka qaranka wixii lagu heshiiyey bishii May iyo Soomaalinimadaba waxaan ka codsanayaa madaxweynaha xilligiisu dhammaaday dalka inuusan qasgelin faraha kala baxo maaragtay shaqada ra'iisul wasaaraha oo wareejiyey Igraan waa gabadhiisii oo kale inuu saas u hor istaago oo saas u dhaqmo runtii waxay dil ku tahay ummadda Soomaaliyeed waxay dil ku tahay asaga waxay dil ku tahay cadaaladda waxay dil ku tahay jiritaanka waxaan u soo jeedinayaa arrintaa inuu faraha kala baxo oo ka noqdo dadka ku taageeraya qaloocaas oo saraakiisha ah darajo kastaba ha lahaadeene ilaa janan ilaa xidigle waxaad ogaataan Igraan inaanan ka wanaagsanayn inaan laydinka jeclayn maanta in dan laydinku gudanayo markii laydinku dan gaarana meesha Igraan marta aad maraysaan marka waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa ha ugu hiilinina cadaalad darro qofna ama madaxweyne waqtigiisu dhammaada ha ahaato ama cid kale ha ahaato ciidamada qalabka sida dableyda saraakiil xigeenka saraakiisha iyo alifleyda waxaan u soo jeedinayaa Igraan waa gabadhiinnii waa walaashiin waa xaaskiinnii waa hooyadiin waa habaryartiin waa eedadiin waxaa laydin adeegsanayo waa intaasu inay cadaalad weydo ha yeelinina diida ka hor imaada taageera cadaaladda